الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله intaa kadib assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh insha allahu tacaala waxaanu kasii anbaqaadi doonaa suuraddii inoogu xigtay suuratulmulk casharkeenii taxnaha ahaa ee ku saabsanaa barashada higaada qur-aanka kariimka ah suuraddaynu dhigan doonaa maanta insha allahu tacaala wixii ku jira ee higaad ah in laga soo saaro u baahan waxaa la yihahdaa suuratu taxriim insha allahu tacaala waxaanu ka bilaabi doonaa bisinka waanu in badan kusoo dhiganay suuradihii hore higaadin maayo insha allahu tacaala toos baan u dulmari doonaa bismi illaahi araxmaani araxiim suuraddan waxay ku bilaabantay ya waxaana ku xiga alif ya-da iyo alifta markay isku xigaana waxaa kasii dambeeya hamze halkaana waxaa dhashay madkana waxaa keena saddex xaraf nidhi alif iyo yaa iyo waaw saddexdaa xaraf marka la helo ayaa waxaa la helayaa sababta ka dambeysa madka ee dheereynaysa in la dheereeyo oo la yidhaahdo laba sababood baa keenay baa layidhi labada sababoodna maxay ahaayeen xarafka inuu hamze inuu noqdo ama keligii oo saasa hamze ah ama inuu noqdo sukuuntana insha allah wayna iman doontaa oo xarafku sukuun saaran yahay ama mid kusoo sukuun ku timid markii lagu istaagay ha noqoto ama sukuun uu asl u leeyahay ha noqoto laakiin xurufta madku waa kaa sababka madkuna waa kaas marka imika halkan waxaa noogu jira xaraf xuruufin mad oo alifkan ah waxaana ka dambeeya hamzahaasna ayaa keenay in la dheereeyo sababtii xoog loo dheereeyo oo la yidhaahdo yaa ayuhannabiyu halkan in badan baan ka sheekeeyey hamsatulwasli baa ku jira hamsatulwasligaasna lama akhriyo marka laysku xidhay labada xaraf labada kelmadood yaa ayuhannabiyu nuunka shidana akhri lima tuxarimu halkan waxaa ku jira xaraf mad oo ah alif sidin halkan kuusoo sheegay sababtii madkuna waa tan ka daba dhacday oo ah hamzadan markaa waa la dheereynaya maa axalla allahu halkan waxaa ku jira magacii ilaahay ismuljalaala waxaa ka horeeya fatxaha markuu ka horeeyo iyo damuhu fatxa iyo dama markuu ka horeeyan ismuljalaalaha magaca ilaahay waxaa la weyneeyaa laamka ku jira ismuljalaalahaasi oo waxaa laga dhigaa mid culus sida halkan ku jirta oo kale imika maa axalla allahu halka allah ku jirta waad weyninaysaa laamka ku jirta marka fatxa iyo dama ka horeeyaan iminka fatxa inooga horeeya maa axalla allahu lak haddaad doonaysa inaad ku xidhana fatxahood muujinaysaa maa axalla allahu laka tabtagii xuruufulqalqala waxana waa 5 waxaa loo kala qaybiyaa qoof oo 2 dhibcood leh iyo daal iyo jiim iyo too iyo baa qutbun jad baa lagu soo kooba marka imika ba'da xuruuf qalqalay ka mid tahay markaa muuji qalqaladeed tabtagii mardaata rada marmar baa la weyneeyaa marka fatxaka iyo damu ka horeeyo iyo mara kaleba mardaata aswaajika waaw fatxa iyo alif halka alif baa ku jirta iska ilaali aswaajik wallahu weyne waawga ha weyneynin ilaamka weyne wallahu ghafuurun raxiim tanwiintan waxaa ka daba dhacay roo idqaamkii weeyaan aan qunaha lahayn ghafuurun raxiim qod qalqalada jiimka muuji qod farada marka doodkan waxaa isku akhdaa iyo laamkaasi oo hamsatul wasligan ka bood aliftaas laamkaas nu weynaanaya maxaa yeele fatxa ka horeysan marka kugu soo sheegay farada allahu lakum taxillata aymaanikum wallahu mawlaakum wahuwa alcaliimu alxakiim mimkan laamka ku akhri waid asara ha qalqalaynin daalkaasi horen waa id daalka muujixa sukuntiisii waid bas waid asara annabiyu raada markaa shado nuunkii qunihiisana ku hayo shid
أسر النبي نبي بعد هوستيدو دي موجي يا ده نشط كموجي وإذ أسر النبي إلى همسة كسرة إي لام فتحة يمد بالألف إلى بعض أزواجه هل كان واحد كتير يا ده سنوح لو متك كانت هي إلا يلاحظوا أزواجه حديثا تنوين تنوي حسوا آخر فهذا سوى إخفاء حديثا فلما ميم شدن ما نبأ بعد موشي نبأ أعدنا موشي نبأ نبأت تاذا إن بدل ما كان شيء كي كاف كمرك سكون ليهن نقص برصو صار نبأت به هكذا واحد كتير وحسوا إسكيل علي به وأظهره هو ذا سي واحد كو أخذ اللام كمركا وأظهره الله ألف كس ألف فتحة ما همزة فتحة يضا وأظهر هذه يرادنا فتحة سالا وأظهره الله عليه عرف راض شد عرف بعضه هو مد بالواو مد بالواو بعضه وأعرض عن بعض تدون سنسكتاك ضادكي سكونسي بعض هذا سعوتنا سنة عن بعض فلما laga yaabaa isweydiiso tirahdo miimka yar xagu ka yimid miimkan halkan ku qoran inuu xagu ka yimid miimkan wuxuu ka yimid nuunkii reebanaa iyo bacdi marka iska daba dhacaan waxa loo bedelaa loo qalibaa iqlaab baa la yidhahdo miim yar am bacd oo nuun ha akhriimka caynkan marka akhrido meeshii miimka tag oo ku hay maadaama miimka iyo bacdi isku meel ka soo baxayaan am dabinahaas ku qabo am bacd falamma nabba'aha bihi halka yaaba ku jirta iska ilaali هي شغل دير قالت من نون كريبن waxa ka daba dhacay hamza wa idhar man anba'aka nuun reeban iyo ba sin halka aan ku soo marnay marka wa iqlab man anba'aka hada qala nabba'a ba'da hujb shadkeedii نبأني بهيد ني لكن ما كيأذن وحصار فتحة بدام حرف كل حريو واحد هذا نبأني العليم الخبير أو نون فكسريسي موتي يأذن فتحية دي موتي ولا مكوكو آخر نبأني العليم الخبير هل مجهنا قرين همسها كوتشرا نبأ قال نبأني العليم الخبير نونتي ربنا wax ka daba dhacday ta wa ikhfa inta tu marka waxa ku jiray marka halkan mad bil waaw tu ba no mad bil alif laakiin alifkii waxa ka daba dhacay hamzuna wuxuu kamid ahaa xuruuf sababtii midka keenaysay marka sida ugu loo dheeriyay calaamadii midka keenaysay oo taale noo muujiyaa kale inoo muujiyay إن تتوبا إلى الله فقد ذلك موجق القليس فقد صغت قلو لا يمكن أحكو شيء مد بالواو قلو لو بو بعد من الضمير هذه قلوبكو ما ميم ألف يفتحها قلوبكما وإن تادي حكا دبر عليه نونك حكا دبر عليه تا وانا اخفاء وان تضو بحانو اريد او ضاد ويني ضاد waxa kamid ah حروف الاستعلاء وويناء وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه لام الف كتاجن لا مولاه وجب بعد القضية دي سكون مسارا وجبريل وصالح المؤمنين أكن بدل ما كوشر هسكو قلدين هذا درجته همزة يواو يستول سارن ولي وحويان همزة وبلا آخرية وميم كضميسي همزة سكون بلا آخرية سكون سارن وصالح المؤمنين ميم كسرة كسرة يمد بالياء منين وصالح المؤمنين
والملائكة بعد ذلك ظهير. الله وان كبر يا إلهي نوان فع قرآن كدمانتين إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.